laakiin markii ay gaareen iridda tuulada waxay si lama filaan ah ula kulmeen socod aaska hooyadii. Si kastaba ha ahaatee, ninku wuu isweydiiyey qoyskee qof ka dhintay. Wuxuu u qaatay nasiib xumo weyn in socodka aasku xitaa jidka u xirayo. Xitaa gaariga kama uusan degin. Wuxuu si toos ah ugu yeeray darawalkii hortooda si uu ku qasbo aaska inuu jidka ka leexdo. Qofkii mas'uulka ka ahaa aaska ayaa arkay inay si aan caqli ahayn u dhaqmayaan, xitaa waa la dharbaaxay. Ma uusan haysan wax kale oo uu sameeyo, sidaas darteed wuxuu qariyey xanaaqiisii, wuuna u oggolaaday inay gudbaan. Laakiin markii ninku ka gudbay aaska, wuxuu si lama filaan ah u arkay laba qof oo aad ugu eg yihiin walaashiis iyo xaaskiisii hore. Sidee bay taasi ku suura gashay? Gacaladiisii ag fadhiday ayaa ku tiri inuu khaldamay. Maxaa yeelay xaaskiisii hore waxay maalintii ka horaysay magaalada ku qabanaysay aaska hooyadeed, mana suuragal ahayn inay miyiga timaado. Walaashiisna hubaal waxay guriga joogtay si ay u dabaaldegaan dhalashada hooyadood. Markii uu taas maqlay, ninku wax kale kama uusan fikirin. Isagoo faraxsan ayuu hadiyadihii la galay guriga si uu hooyadii u arko. Laakiin hooyadii, oo caadi ahaan mar walba bannaanka soo bixi jirtay marka ay maqasho codkiisa, maalintaas meelna lagama helin. Markaas ayuu isu diyaariyey inuu albaabka furo oo gudaha galo. Laakiin isla wakhtigaas gacalisadiisii ayaa si lama filaan ah telefoon uga heshay isbitaalka. Qofkii wacay wuxuu sheegay in agaasimuhu doonayo inuu kala hadlo arrimo shaqo. Ninkii ayaa si degdeg ah u qabtay taleefanka. Gacaladiisii ayaa hadiyadihii qaaday, gurigana marka hore gashay. Waxay ku aragtay howl subaxeed meel baroordiq ah. Miiska dushiisana waxaa saarnaa shahaadada dhimashada hooyadii. Markaas ayay argagax ku fahamtay in bukaankii ay dhowr maalmood ka hor ku dishay qalliin sharci darro ah uu ahaa hooyada ninka. Iyaga labaduba waxay had iyo jeer u haysteen dhalashada ugu dabaaldegaan. Ninku wuxuu rabay inuu gudaha galo oo hubiyo, laakiin gacalisadiisii ayaa si degdeg ah u weydiisay waxa agaasimuhu taleefanka ka yidhi. Ninku wuxuu sheegay in isbitaalka uu jiro bukaan u baahan qalliin degdeg ah. Markay taas maqashay, waxay isla markiiba tiri in agaasimuhu si toos ah u soo wacay, taasoo muujinaysa in arrintu aad u degdeg badan tahay, isla markaana uu marka hore ku laabto magaalada si uu u qalliyo bukaanka, kadibna dib ugu soo laabto si ay u dabaaldegaan dhalashada hooyadii. Ninku wuxuu u arkay inay taasi macquul tahay, sidaas darteedna isla markiiba ayuu ku noqday magaalada. Imise jir baad tahay? Waxaan ahay 10 jir. Aniguna sidoo kale waxaan ahay 10 jir. Goorma ayay dhalashadaadu tahay? Febraayo 26. Maarso 17. Aniga ah qofka ugu dada yar fasalkan. Taasi waa wax lagu qoslo. Haye, waa hagaag. Waxaan arkayaa inaad labadiinuba isbarateen. Anigu waan ka yarahay isaga. Maxaad ii sheegi weyday inay fasalkan imanayso? Waxaan u malaynayay inay noqon doonto yaab xiiso leh. Anigu ma jecli yaababka. Aniguna sidoo kale ma jecli. Haddaba maxaad u samaysay? Dad qaarkood way jecel yihiin yaababka.